أثمر الجهد فاك الثمرة، يا فؤادا بالختام ازدهرا، مذ حوى آي الكتاب نوره، جاوز الشمس وحتى القمر. أثمر الجهد فاك الثمرة، يا فؤادا بالختام ازدهرا، مذ حوى آي الكتاب نوره، جاوز الشمس وحتى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي وإن سلامي مقعي ورحمة هلك aad naga daawanaysaan waa Malaak Channel. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago 10 kutub oo muhiim ah aan akhriyay wax badan aan ka faa'iiday inaan idin la wadaago jecelahay si idinkana wax badan uga faa'iidaan insha Allah. kitaabka ugu horeeya magaciisa waxaa lahaa Ar-Rijaalu min al-Mariikh wan-Nisaa'u min az-Zuhra. waxaa qoray ninka laho Dr. John Carey. kitaabkani luqada carabiga ma lagu qorin markii hore, waxaa lagu qoray luqad kale kadib waa la turjumay. dhowr luqadood oo kala duwan waa loo turjumay. dhammaan kitaabadan aan idiin sheegi doono waxay ku qoran yihiin luqada carabiga. waxaa ugu talagalay dadka af carabiga wax ku akhriyo. wuxuu ka hadlayaa kala duwanaanshaha u dhaxeeyo ragga iyo dumarka markii la dhaho dhanka jir ahaaneed, fikriyan iyo waxyaabo kala badan. insha Allah haddii aad ka heshay suuqyada dabcan ma laga helaayo, PDF aad ku heli kartaa. kitaabka ku xiga magaciisa waxaa lahaa Asraarul Unuutha. waxaa qoray Naasir Ash-Shaafici ninka loo yaqaano. wuxuu ka hadlayaa dumarnimada iyo waxyaabo la xiriiro dabcan kan wuxuu quseeyaa dumarka. kitaabka ku xiga sidoo kale waxaa lahaa Sana Uula Siwaaj, sanadka ugu horeeyo ee guurka. waxaa qoray Dr. Jamaal Maadi ninka loo yaqaano. sanadka koowaad iyo waxyaabaha loo baahan yahay iyo qaabka la isku baranayo iyo qof kasta qofka kale qaabkii uu soo jiidan lahaa. kitaabkana ku xigo isagana sida arkaysaan warqadiisa waa koobi. magaciisa waxaa lahaa Xuquuqul Mar'a wa Waajibaatiha fi Dawi al-Kitaabi was-Sunnah. waxaana qortay gabadha loo yaqaano Dr. Faadima Cumar Nasiif. dabcan magaalada Muqdisho maanta haddii aad u baahatid inaad kitaab soo iibsatid, maktabad ma jirto aad ka helaysid kitaabka aad u baahan tahay oo wanaagsan oo originaal ah ma jiro. sidaas darteed kitaabada inta aad ku arki doontaan dhammaantood waxay u badan yihiin koobi ama kulligoodba waa koobi. wax yar markii laga reebo saddexdan insha Allah, markii laga reebo deg kale oo soo socto waa koobi. maanta haddii aad magaalada u baxdid aad isdhahdid wax yar banaanka wax kasoo qabso, 2 tilaabo kasta kadib maqaayad waa ku arkay. laakiin waa naadir inaad heshid maktabad lagu iibinayo kitaabo wax yar ku yaalo. waxa yarne kitaabada u baahan ma ka helaysid. xaqiiqatan taasna waxaa waaye naqsi iyo ceeb aad weyn waaye. hadda Soomaalinahay ee waqtiga inaa wax badan ka bedelno u baahan. kitaabkan wuxuu ka hadlayaa xuquuqda gabadha muslimada ee siisay islaamka, yani kitaabka iyo sunnada. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa dumarka islaamka ka hor sidee loola dhaqmi jiray, dumarka diimaha kale sidee oo dhaqmi jireen. wax badan aan ka faa'iidi doontaa insha Allah. waxaa ku xigo kitaabka magaciisa yahay Kuuni Saxaabiya ama Noqo Saxaabiyad. wuxuu namaadij ama tusaale u soo qaadanaya gabdho saxaabiyad ah iyo mawaaqif xasaasi ah. waxaa ku xigo kitaabkan magaciisa yahay Imra'a min Daraasin Khaas, Dr. Karim Ash-Shaadili. kitaab badan oo fiican uu leeyahay, wax badan aad ka faa'iideysaa insha Allah. kitaabkan wuxuu ku sharxayaa caadooyinka 5 ah ee leedahay gabadha guuleysatay. si fiican u sharxayaa 5 caado. waxaa ku xigo kitaabkan loo yaqaano Masaarul Usra Mabaadi' litawjiih al-Usra. waxaa iska leh Dr. Cabdilkariim Bakaar. Dr. Cabdilkariim wuxuu leeyahay kitaabo badan oo faa'iido leh. waxaa kamid ah kitaabka loo yaqaano Al-Qiraa'a Al-Muthmira oo runtii hadaa akhrisid wax badan ka faa'iideysid.
kitaabkan asalkiisa markaa arkayay waxaa ka arkay qof asxaabteyda kamid ah bartiisa Facebook soo dhigay, kadibna waa ka codsaday, linkigu isoo diray, waa soo degsaday. wax badan aan ka faa'iiday. wuxuu ka sheekeynayaa qoyska sida mataqaana shay nidaam loogu sameyn karo, dhaqaalaha gurigaas loo idaarinayo, waxyaabo inkaas waxa uu sharaf ku saabsan. sidoo kale waxaa kamid ah kitaabkan isagana weeyaan sida arkaysan wax weyn uu ka hadlayaa. magaciisa waxaa la dhahaa shakhsiyat al-mar'a al-muslima kama yasuuqha al-islaamu fi al-kitaabi was-sunnah. waxaa qoray Dr. Maxamed Cali Al-Hashimi. wuxuu ka hadlayaa shakhsiyada gabadha muslimada ah laga rabo inay noqoto. wuxuu ka hadlayaa jawaanib fara badan, gabadha iyo dariskeeda, gabadha iyo waalidkeeda, gabadha iyo asxaabteeda, gabadha iyo ninkeeda, yani gabadha iyo gurigeeda, wax walba oo gabar ku saabsan uu ka hadlayaa. kitaabkan hadaa akhrisid dabcan waxaa u dhawaanaysaa qof dhammaystiran. ma jiro qof insaan ah oo isagana kaamil ah, على الأقل يعني قف وإسك يرى معقولة ما عرفتي أو القاعدين كده عن قناصة. سيدا كلام حاكمت أهتمنك كتاب أيضا كوت لي كتاب كان الله هايو إليكي أنتي وحاسكله دكتور ليلى حمدان. هيكش هيك طبعا وحي وجهد لسا وحيابو بدن ودمرك قصيو sida inay gabadha ka qayb qaadato acmaasha khayriga ah, ilaahay inay wax wanaagsan ka rajeyso, waxyaabo badan ay ka hadlaysaa. sidoo kale gabadhan waxay leedahay majaladaas loo yaqaano Tibyaan, maqaale ku soo daabacda aad u fiican. dad kalena wax bay soo geliyaan, laakiin ayadaasi oo shakhsi ah u leh insha Allah wax badan ka faa'iido doontiin iyadana soo booqda. kitaabka ugu dambeeya waxaa waaye kitaabka loo yaqaano Fiqhul Hayaa. waxaa qoray Dr. Maxamed Ismaaciil Al-Muqaddim. afadlah isagana sidoo kale wuxuu ka sheekeynayaa xishoodka gabadha iyo waxyaabo la xiriiro. wuxuu soo qaadanayaa aayaad qur'aan ah oo fara badan, axaadiid. insha Allah ka wardoona kitaabadan dhammaantood aad muhiim u yihiin, gaar ahaan gabdhaha. intaas waa kitaabada ugu talagalay. waa mahadsantihiin. intaan videoga dhameynin waxaan ka codsanayaa channelkeena hadaa ku cusub tahay inaa yani subscribe aan u saartid. haddii aad jeceshahay waxyaabo inaa kusoo kordhino ama waxyaabaha jeclaan lahayd inaan channel kusoo darno, inaa hoos noogu reebtid, like noo saar. waxay naga saacideysaa youtube-ka inuu dad kale far badan inuu noo tuso. haddii wax un aan ka faa'iiday, qof kale oo asxaabtaada ah ama saaxiibka ah la sii sheekay si isagana uu wax uga faa'iido. waa mahadsantihiin.